بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن داود يال halkan warbaahinta Kaahi Media ku soo dhawaada warka Kaahi Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Allah uu naxariisto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho injineer Yariso maanta aas qaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho madaxda ugu sareysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar kamid madaxda dawlad goboleedyada oo ka qayb gala aaska qaran ee maanta Muqdisho lagu sameeyay Allah uu raxmaday gudoomiyaha Yariso faafayna dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari hogaamiyaasha Soomaalida Oromada oo shir heer caalami ah uga daafurmay magaalada Jigjiga xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale diyaaradda Uganda Airlines oo shaacisay in bishan gudaheeda ay bilaabayso duulimaadyadii ay ka qaadayso magaalada Muqdisho qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka Kaahi Media waxaa kamid ah toogasho mar kale ka dhacday dalkaas Mareykanka oo ku geeriyoodeen in ka badan 10 qofood iyo dawladda Iiraan oo mar kale afduubatay maraakiib ajnabi ah markale daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Kaahi Media hadii aad channelkan ku cusub tahay mogaan inaad saarto subscribe like aad dhahdo share aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada warka warbaahinta Kaahi Media inta hore ka dhameystiran aynu ku bilownaa Allah uu naxariisto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineer Yariso ayaa maanta aas qaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho garoonka diyaaradaha dancadda airport ee magaalada Muqdisho ayaa laga soo dejiyay diyaarad ka timid magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar taas oo wada Allah uu raxmaday meedka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineer Yariso meedka oo la filayay maalintii shalay lagu aasay magaalada Muqdisho ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii sida la sheegay cilad farsamo ay la soo dirsay diyaaradii meedka soo qaadileed asaatee aroornimadii hore saaka iyo meedka laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha dancadda airport ee magaalada Muqdisho waxa ka qayb galay aaskiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Ali Khayre gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano qayb ka ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir qaar kamid ah xubnahooda ehelada iyo sidoo kale qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo guud ahaan isugu tagay garoonka diyaaradaha dancadda airport ee Muqdisho halkaas oo salaada janaasada lagu tukaday waxa intaas ka dambeeyana waxa loo galbiyay in lagu aaso mid kamid ah aasaska ku yaala halka loo yaqaan iskuul Brusiyo magaalada Muqdisho ka tirsan halkaas oo aas qaran lagu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineer Yariso ra'iisul wasaarka ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo warbaahinta kula hadlay isla goobta aaska qaran lagu sameeyay isla markaana ku hadlayay afka guud ahaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyaday geerida ku timid Allah uu raxmaday injineer Yariso waxa intaas ka dambeeyana waxa bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday in iska cafiyaan isla markaana ay u duceeyaan Allah uu naxariisto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqay Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineer Yariso gudoomiyaha gudoomiyaha hore gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku geeriyooday qarax ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Muqdisho 24 bishii soo dilaatay ee July iyadoo ugu dambeyn aaska qaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhanka kalena faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari iyadoo dhanka kalena uu wasiir hore ka hadlay arintani faafayna dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana la sheegayaa in halkaas laga maqlay jugta qarax xoogan kadib markii la sheegay halkaas uu ka dhacay qarax hotel Ramada oo magaalada Boosaaso ku yaala goobjoogayaal ayaa soo wariyay in qarax uu ahaa miinan nooca dhulka lagu aaso isla markaana lala egtay gaari halkaas marayay oo ay wateen mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamul goboleedkaasi Puntland gaar ahaan wasiir hore Shire Xaaji Faarax waxaa jira qasaare kala duwan oo dhashay ilaa haatan sallamooga qasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari qaraxa iyo goobjoogayaasha ay soo wariyeen inuu haleelay gaariga uu wato wasiirka hore ee qorsheynta xukuumadda madaxweyne gaas sidoo kalena mar soo noqday wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Puntland Shire Xaaji Faarax gaariga oo ahaa midka aan xabadda karin ee bullet proof ka la yiraahdo ayaa la sheegay in miinada ay ka haleeshay qaybta dambe xilli uu maraya xaafadda New Boosaaso laamiga Afriirdoodka kuna dhow hotelka hore ee Ramada ee magaalada Boosaaso sidoo kale Shire Xaaji Faarax ayaa hore uga mid noqday musharaxiinta dawlad goboleedka Puntland laamaha amniga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wilmaysan ka hadlan qaraxani ase yeeshee bilihii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso ayaa qayb ka noqotay magaalooyinka ugu amniga xun ee guud ahaanba geyiga Soomaalida kadib markii halkaas toogashooyin iyo falal amniga liddi ku ay ka dhaceen qodobada Soomaalidana waxa ugu dambeeyay shir u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada ayaa ka daafurmay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya shirweynihii labaad ee wada tashiga iyo sii xoojinta iskaashiga deegaanada Soomaalida iyo Oromada ayaa ka furmay caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga gaar
ahaan magaalada madaxdooda ee Jigjiga. Shirka ayaa waxaa ka qayb galaya mas'uuliyiinta ugu sareysa labada dowlad deegaan oo ay ka mid yihiin madaxda dowladda Soomaaliya, madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Akhtar, madaxweynaha deegaanka Oromada Jean-Melis Abdiisa, hogaamiyaha odayaal dhaqameedyada iyo guud ahaanba. Waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ninka lagu magacaabo Mustafa Maxamed Akhtar, kuwaas oo si weyn loogu faaqidi doona arrimaha soo laablaabtay ee dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada halkaasi wada degan. Saaxiibayaal, waxaad daawaneysaan warka warbaahinta Kaahiye Media qodobada Soomaalida inta ayaan kaga gudbaynaa iminkana qodobka dibadda. Toogasho mar kale ka dhacday dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 10 qofood. Ciidamada booliska magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa sheegay in tacshirada ay ka dhacday halkaas ay ku dhinteen 9 ruux. Dhimashada dalkaasi oo ka dhacday degmada Oregon ee magaaladaasi ayaa lagu waramayaa in sidoo kale uu ku dhintay qofkii ka dambeeyay falkaasi. Dhimashada shilkan oo ka dhacay meel dibadda ka ah baar ayaa la xaqiijiyay inay jiraan tiro dhaawacyo ah oo loola cararay isbitaalada sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka. Shilkan ayaa imaanaya wax yar kadib markii magaalada Texas la yiraahdo gaar ahaan deegaankooda El Paso ay ka dhaceen toogasho sababtay dhimashada 20 qofood. Mareykanka ayaana qayb ka noqonaya wadamada ugu badan oo ay ka dhacayaan toogashooyinka. Guud ahaan saaxiibayaal, waa naga tawar wixii dalkii dibadda naga soo gaaray aad ka daawaneyseen warbaahinta Kaahiye Media. haddii aad channelkan ku cusub tahay mugaan inaad saarto subscribe, like aad adigan balaalka aad furato si aad u noqoto kan ugu horeeya ee wararka iyo warbixinada aad helo. sidoo kale share dhaha si aad ula wadaagto saaxiibada. Tani kulanti dambe warkan kiisa xiga saaxiibayaal, nabadgelyo.